waxaan kuu soo gudbinayaa cawada waa insha Allah ama waa rajada qof kasto dhiban ama dhibaato ay hayso rajadiisa weeyaan insha Allah wax weyn ma aha waa magac alle iyo dikri kamid ah dikriyada adinka aad garanaysaan oo laba ah iyo hal suurad intaan hadda aan kuu soo sheegay waa magac kamid ah magacyada alle laba dikri iyo hal suurad oo quraanka kariimka ay ku jirto qof kastana yaqaana Allahu akbar kali ah waxaad sameynaysaa qaabkan kuugu soo gudbinayo iyo cadadka aan kuugu soo gudbinayo iyo muddada la wadaayo kali ah isticmaal insha Allah biidhnillaahi kariim رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله كسو دواذا شيخ ريمي channel. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله كسو دواذا فيديو عصب يمقال عصب قفكي حنون سن حنونك الله كقاذو قفكي إرزاق يريئه هيستنا الله سبحانه وتعالى هو بديو qofkii arzaaq aan haysanin Allah subhanahu wa ta'ala ha u sahlo qofkii ciriiri ku jiran Allah subhanahu wa ta'ala ha ka qaado qofkii guur aan haysanin guur xalaal ah Allah ha u sahlo qofkii awlaad aan haysanin awlaad baari ah Allah ha siiyo qofba meel ayuu ka ooman yahay qof kasta meeshuu ka ooman yahay Allah ha ka waraabiyo walaalayaal aamin dhaha qofka carabkiisa la saaran yahay lama yaqaan insha Allah biidhnillaahi alkariim كسو دواذا فيديو عصب يا مقال عصب ما انتو waxaan idin hayaa video aad iyo aad qiimo iyo qaaya u leh ma sha Allah tabarak Allah anta videogan idin hayo waxa way walaalayaal waa video Allahu akbar yani qulubta ku qaboojinayo waa video arzaaqda Allah subhanahu wa ta'ala ku soo shubayo sidii roobka lagu soo shubayo waa ishaq adig waxaan ku soo gudbin rabo waa wax Allah subhanahu wa ta'ala albaabadiisa uu kuugu furayo waxaan ku soo gudbinayaa cawada waa ruuxaani waa magaranaysaa waa neecaw waa saxan saxo waa rajada mu'minka insha Allah ama waa rajada qof kasto dhiban ama dhibaato ay hayso rajadiisa weeyaan insha Allah wax weyn ma aha waa magac alle iyo dikri kamid ah dikriyada adinka aad garanaysaan oo laba ah iyo hal suurad intaan hadda aan kuu soo sheegay waa magac kamid ah magacyada alle laba dikri iyo hal suurad oo quraanka kariimka ay ku jirto qof kastana yaqaana Allahu akbar kali ah waxaad sameynaysaa qaabkan kuugu soo gudbinayo iyo cadadka aan kuugu soo gudbinayo iyo muddada la wadaayo kali ah isticmaal insha Allah biidhnillaahi kariim markaad bilaabaysidna hal niyad kaliya la imaanin tusaale ahaan in arzaaq yari ay ku hayso ama arzaaq la'aan ay ku hayso Allah subhanahu wa ta'ala maadaama ilaan qofkii bilaaba dikrigan amaba wasfadan aan idin sheegi rabo Allah subhanahu wa ta'ala arzaaq zaa'id ah ayuu siinayaa marka haddii aad niyadaada hal shay aad ka dhigtid sida arzaaqda oo kale hadhow muraadkaada aad heshid waxaad noqonaysaa muraadkiisa helow meel dheer ayuu maraa ayaad noqonaysaa waad magaranaysaa ii sheeg adiga waad ka leexanaysaa lama rabo marka waxaad u isticmaalaysaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaad xiriir la yeelanaysaa Allah subhanahu wa ta'ala ayaad magaranaysaa wax kasto Allah subhanahu wa ta'ala aad ka dalabtidna waa uu ku siinayaa Allahu akbar marka hal niyad ha u akhrisanine niyada waasic ka dhig oo ii sheeg يعني قف يعني هاسكدغين امابا هسمينين مدده كليه سمي ان كدحay kaliya hasameynin qofkii bilaaba way u macaan doontaa wayna u socon doontaa wayna u hergeli doontaa waxyaalo badanna uu arki doona asaga uu la yaabi doono insha Allah biidhnillaahi alkariim
فيديوغان إلى دمتكيس الله سعو هدي آتكيش اللايكتا سيدي روبكا إنو غيل سبسكرايب نوردها نقارسية الله بقول أو كل أو سبسكرايبرز إن شاء الله بإذن الله الكريم لايكتنا سيدي روبكا إنو غيل قنبيالكنا فرطة سي أي إذين سو غاران وحكستو عصب أو أنسو قلينينو إن شاء الله بإذن الله الكريم شيرتنا كو قبتا سياد هشان الدال على الخير كفاعله عوض waxa waaye marka hore waxa la sameeynaya magaca alle waxa la akhrinayaa 1233 joor ayaa la akhrinayaa salaada subax ka bacdi ayaa la akhrinayaa maxaa yeelay waxaad weysanad waa arzaaq waxaad rabtay waa arzaaq sidaas daraadeed arzaaqda sida suubanaha inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam waxaa la qaybiyaa qofkii malagii u xil saarnaa waxaan jeclahay inuu ahaa Mikaa'il malagii u xil saarnaa arzaaqda subaxdii hore ayaa magaranaysaa la qaybiyaa sidaas daraadeed magacaasi hadda tan aan ku sheegayo 1233 joor ayaad waxaad akhrinaysaa المغني aad akhrinaysaa shanta salaadood gadaasheedana tan bacd salaad subax way mubaasharatan waaye adigoo saligaaga fadhiyo haddaad tahay gabar oo gurigaaga joogtid dumar aan ula jeedaa haddii aad tahay haddii rag adiga aad tahay masaajidka 1233 jeer المغني ayaad ku celcelinaysaa waayahay shanta waqti gadaashooda waxaad akhrinaysaa 33 jeer istighfaarta siiqa allaala siiqadii aad rabtid ayaad la imaanaysaa astaghfirullahi alazim wa atuubu ilayh ama astaghfirullahi alazim ama magaranaysaa rabbi ighfirli saad jeceshahay boqol kuma dhihin 33 jeer kaliya ayaad dhahaysaa hagaag waa fahmay midda labaadna waxa waaye 33 jeer ayaad nabiga ku salinaysaa waa shanta waqti hadaba waa 15 maalmood gudahooda laba isbuuc ayaa la rabaa in la wado labada isbuuc gudahooda ayaa waxa la rabaa in magaranaysaa la sameeyo shanta waqti istighfaarta 33 jeer saliga nabiga 33 jeer intaan waan isla fahanay hadaba habeen kasta inta aadan seexanin laba rakac ayaad tukanaysaa oo salaatul xaaja ah muraadka ilaahay aad ka leedahay si Allah subhanahu wa ta'ala uu kuugu sahlo markaas ka bacdi suuratu duha ayaad akhrinaysaa meeqa jeer ka akhrinaysaa 33 jeer suuratu duha waa habeenka mar intaadan seexanin hawsha ugu dambayso aad qabanaysid ayay noqonaysaa suuratu duha akhriskeeda 33 jeer ayaad ka dhigaysaa hadana maalinkii kale saas ayaad sameynaysaa muddo waxaad wadaysaa laba isbuuc amaba 5 iyo 10 maalmood ayaad wadaysaa insha Allah biidnillaahi alkariim isbedel weyn waad arki doontaa biidnillaahi alkariim maalin kastaad sameynaysaa wadduha hal mar lee waaye markaad seexanaysid laba rakacaad tukatid aad akhrinaysid suuratu duha 33 jeer maalin kasta 15 maalmood maalin kasta shanta waqti gadaashooda 33 jeer istighfaara 33 jeer saliga nabiga ah salaad subax kasta gadaasheedana 1233 jeer المغني aad akhrinaysaa ka bacdi waxaad arkaysaa isbedel weyn in aad adiga dareemi doontid insha Allah biidnillaahi alkariim xitaa haddii aad magaranaysaa shaqo aadan haynin xitaa haddii arzaaqda sidii aad yacni adigoo fadhisa adigoo meel fadhiya hadayna kuu imaanin meel wax ka filaysay iyo meel wax ka filaynin haday xitaa kuugu imaanin asbaabtii arzaaqda aad ku heli lahayd ayaad magaranaysaa ilaahay kuu fududayna insha Allah biidnillaahi alkariim maxaa kamid ah sidii shaqo oo magaranaysaa aad hesho oo kale mashruuc yar adiga aad samaysatid oo ku hirgalayo oo kale iyo wixiiba la mid ah insha Allah biidnillaahi alkariim hamoogaanina intaas ayaan kuu soo gudbiyey wax kale kuma aanan sheegin waa qur'aan waa magac alle waa istighfaar waa saliga nabiga intaba ii sheeg adiga wanaag ayaa lagu sheegay intaas ayaan kusoo gabagabeynay walaalayaal waxaan helay nafiya shaydaanay ka ahaadeen Allah naga dhaafo waxaan hagaajiyeyna Allah xaqiisay ka ahaadeen Allah naga ajarsiyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh